waxaan leeyahay hambalyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ninka dhalinyarada ah Ibrahim Sheekh Maxamed Maxamuud waxaan leenahay Ilaahay ku fududeeyo xilkaaga runtii waa wax la bogaadiyo in dhalinyaro ay aqoon aad u sareyso u leh runtiina waxa waaye wax badan laga sugayo xilkaaga Ilaahay ku fududeeyo intaasaan ku soo gabagabeynaa tan labaad waxaan leeyahay hambalyo Axmed Maxamed Islaan oo runtii waxa waaye maxkamadda gobolka Banaadir oo eedan runtii hore ugu soo jeedisay in waxa waaye eedantii ay kala laabatay oo runtii hadda cafis loo fudiyay magaalada Muqdisho uu imaanayo shirkan ugu soo qayb gali doono maalinta bisha kooda ay tahay oo February aan ugu soo beegan maalinta Isniinta waxaan leenahay bal soo dhawaada shirkoodana waxaan rajaynaynaa inuu miro dhal noqdo oo runtii wax badan ay ka soo baxaan halkaas waa muddo 4 sano ah ku dhawaada ayaa la sugayay ninka la yiraahdo Saciid Cabdullaahi Hadil laftarkiisa waxa waaye madaxadeeg iyo runtii waxa waaye dabeecad xumo iyo qaab darro badan oo lagu eedaayay maanta hadduu waxa waaye go'aan ku gaaray inuu waxa waaye dalkiisa ku soo laabto waa guul aan leenahay laakiin se waxa waaye ma rajaynayo inay waxa waaye imaaraadkii meesha maadaama uu ka baxay in ay waxa waaye ogolaadeen runtii waxa waaye 4 sano ku dhawaad inay waxa waaye mataqaana mucaaradnimo runtii waxa waaye jugaysan hayeen haddana laakiin ay go'aan ku gaareen inay waxa waaye yimaadaan bal waxaan leenahay soo dhawaaday mucaaradkii muxaafadka bal halisu soo dhawaado runtii waxa waaye wax la soo dhaweey waana wax loo baahan yahay علينا congratulations day iyagana bal wixii ka soo baxo arkayna insha Allah ta'ala waxa kale runtii waxa waaye wax la yaab ah in waxa waaye niman dhalinyaro ah ee waxa waaye baarlamaanka dhexdiisii waxa waaye carqalad iyo firimbi iyo runtii dhibaatooyin waxa waaye ka dhaxwaday inay waxa ummadda Soomaaliyeed dhageysan waayeen laakiin waxa la yaab leh markii hadda xalana looga yeeray inay iyagu kala orday xalana tageen amar la soo siiyo leeyahay baarlamaankaas dhowr qodob ayaa idin kaaga banaan haddii la soo bandhigo barnaamij waa ogolaaday waanu diidnay iyo waan ka aamusnay intaas kaliya marka waa intaas kaliya ay garan la yihiin marka waxa mas'uuliyadda ay tahay baarlamaan hadii qodob la keenay qodobkaasi hadduu ku qancin ama uusan runtii waxa ku cuntamin awood baa u leedahay xildhibaan baa tahay xasaanad baa leedahay adeer aniga qodobkan ma ogoli marka cod loo qaadayna waa ka codayn kartaa cid ku haysata habeeraatay ma jirto laakiin waxa warqadihii iyo nuqulkii la soo qeybay in la jeexjeexa runtii taas waxa waa shaxmo iyo waxa sharaf xumo u tahay baarlamaanka Soomaaliya waana wax laga xumaado runtiina waxa waaye waxaan soo dhaweynaynaa dadkaas inta laaba sharci laga qaado ma ahan mar ilaa ay muddo 5 sano ay waxa waaye xildhibaanada baarlamaanka qaarkiis ay firimka ku dhax wataan guddiga anshax waa inay shaqadooda qabsadaan talaabo sharci ay qaadaan ummadda Soomaaliyeed waa daawanaysaa dad waaweyn iyo dad badan oo wax ka sugnaa waa dadkaas xildhibaanada saa u dhaqmaayo ummadda Soomaaliyeed marna ma ogolaanayso marka waxaan leenahay bal dib hal isugu laabto runtii waxa waaye talaabo sharci ah laga qaado bal hadda waxa waaye James Swani wax limad ay dhageysanaa ummadda Soomaaliyeed ma dhageysanayaan James oo markay ag fadhiyaan waxa muddo digaag biyo ku dhex dhacay iyaga dhamsaasi u soo wada kaduutaan wax laga xumaado runtii